Assalaamu calaykum ardayda waa idin salaamay casharkan waa casharka Swahili waa casharkii 16aad ama part 16 weeye waxaana rabnaa inaan uga hadlo mowduuca weza hadda hore u maqasho ama kugu cusubta waxaa laga wadaa English can ama be able to or may sidoo kale waxay noqotaa in English ability, possibility and permission. Haddaba marka af Soomaaliyeeno intaan oo dhan waxaa laga wadaa ability waa awoodda oo qofka uu u leeyahay inuu wax ku sameeyo uu ku qabto intii karaankiisa awood Allah leh wixii adiga aad kartid ama aad samayn kartid ayaa la ability awooddaada intay la eg tahay waxbaa qori karaa waan awoodaa inaan ku hadlo luqadda waan awoodaa inaan casharkayga qorto waan awoodaa inaan socdo waan awoodaa inaan istaago dhammaan waxaa waaye awoodahaada aad wax ku samayn karto alla kuu maneystay possibility waa suurtagalnimada wax aad ku samayn kartid ama wax ay ku dhici karaan waa macquulgalka ama suurtagalnimada permission waxaa waaye ogolaansho in lagu ogolaado samaynta shay ama hawl fasaxna waa la dhihi karaa laakiin waa ogolaansho permission waxaa waaye mar walba ogolaansho weeye ogolaansho aa hawl ku samaynaysid ayaa la permission haddaba saddexdan haddaa ila fahamtay aan aragno ereygan weza oo ah awood ama karid wix inaad awoodid ama kartid ereyga waa ficil verb waxaan u isticmaalaynaa sidii ficilkii ayaa u isticmaalaynaa haddaba aragno sida tusaalooyinka aan ugu isticmaalayno halkan waxaan ku qoran mifano Kiswahili mifano waxaa laga wadaa waa examples ama tusaalooyin waaye mifano waa tusaalooyin haddaba waxaa rabaa nafsi ya kwanza shaqsiga koowaad iyo isticmaalka ereygaas aan fiirinaynaa shaqsiga koowaad halkan waxaan ku qoran umoja waa keli hal weeye waxaan badneen oo hal ah waaye ama hal qof ama hal shay ama hal hawl wax keli ah waaye marka umoja waxay noqonaysaa mimina mar walba waxaa raacayso ni saa casharada hore usoo baranay marka weza isticmaalayna waa kana waqtiyadii kala duwnaa oo 3 waqti ayaa isticmaalaya waxaan leeyahay ninaweza ni aniga weeye nacna waxaa waaye waqtiga hadda weza waan awoodaa aniga waan awoodaa ama waxaan waan karaa marka leedahay ninaweza okay intan waxaa waaye niliweza aniga waan awooday waan karay hawshaas inaan qabto laakiin ma qaban waa waqti la soo dhaafay oo mar hore ah waaye waan awooday waan karay inaan luqadda barto oon ku hadlo laakiin ma sameynin hawshii awooddeeda waan lahaa waqti waan haystay energy waan haystay laakiin ma sameynin okay intan waxaa weeye nitaweza waxaa waaye waan awoodi doonaa nitaweza kuja mapema kesho ama kesho nitaweza kuja mapema dhihi kartaa beri xilli hore ayaan imaan karaa waa wax aad hubtid oo samayn kartid waa haddaa waqtigaad qorshaysatidna aad samayn kartid beri hadduu alla idmo xilli hore ayaan imaan karaa waa dhihi kartaa alright intaa markaa aasaa u fahamtid ereygaana waxaan iraahdo waa ficil ahaanba u isticmaalaynaa mar walba Swahiliga markii ficil la isticmaalayo waxaa ka hormara waqtiga iyo shaqsiga sameynayo ni hadda waxaa waa shaqsiga koowaad oo ficil sameeyaha na waa waqtigii wezana waa ficilkii kadib wixii kale ku darsan kartaa intaa marka ila fahamtid diidmadeeda maxay noqonaysaa shaqsiga koowaad waxaan soo barnay diidmo si inuu qaadanayo marka ereyga marka isticmaalayso weza ah si marka ku isticmaalayso waxay noqonaysaa siwezi hadda markay tahay waqtiga hadda halkan aada waxay isu bedelay waxay noqonaysaa siwezi ma awoodi ma kari hadal siwezi kuongea markaad tiraahdo aniga ma hadli kari ama ma awoodi inaan hadlo baad leedahay markay waqti lasoo dhaafo tahayna waxay noqonaysaa halkan ku way isku bedelaysaa waxay noqonaysaa sikuweza ma awoodin inaan hadlo halkan waxaan iraahday markaad diidmo ka dhigayno way isku bedelaysaa alright sikuweza waa ma awoodin markii hadda kadib ay tahayna waxay noqonaysaa sitaweza kuja mapema kesho
kwa sababu ninaenda mahali ama nitachelewa, wax baad dhehaysaa. So kesho sitaweza, beri ma awoodi doono, ma samayn dooni. Sitaweza kuja, ma imaan doono ama ma awoodi kari inaan imaado berito. sidaas waaye u isticmaalaysaa. Haddaba kan umoja haddaa ila fahamto iyo isticmaalka shaqsiga koowaad oo ficil sameeyaha ayadoo jamcan fiirino. Jamci waa kana mimi waxay isu bedelay sisi, ni-na waxay isu bedelay to. Halkan waa annaga, halkan waxay ahayd aniga, inta waa annaga. Okay, isticmaalka marka waa tunaweza waan awoodnaa, tuliweza waan awoodnay oo mar hore ah. Tutaweza waa awoodi doonaa ama waa kari doonaa. Okay, inta marka waxaa waaye waa caadi markii loo isticmaalayo. Markaan diidmo ka dhigayno kaanusha ka dhigaynana ha isticmaalena. So waxay noqonaysaa hatuwezi. Mar walba markii halkan ay joogto waqtiga hadda ah, ficilka haddii u dambeyso wuu isku bedelayaa. Halkan bay noqonaysaa, waxay noqonaysaa hatuwezi, ma awoodno. Hatuwezi kuja kesho, beri ma imaan karno, mana awoodno inaan imaano. Mar hore hadday tahay waxay noqonaysaa hatuku. Meesha li'dana mar walba waxay isu bedelaysaa ku ay isku bedelaysaa. Markay diidmo noqoto waxay noqonaysaa hatukuweza, maanan awoodin, maanan karin inaan hadalno. Markay hadda kadib tahay waxay noqonaysaa hatutaweza, ma awoodi doono bay noqonaysaa. Haddaa diidmadan iyo waxyaabahan oo hadda aan ka hadlayna KMBishigan is bedelkooda ku wareertay casharadeedii hore ku noqon. Qofka labaad marka isticmaal nafsi ya pili, qofka labaad oo ficil sameeyaha wewe waaye ayadoo jamceedana waa kana nyinyi isku bedelaysaa. Marka isticmaalayna waxaa leenahay unaweza, ma awoodaa ama ma ii samayn kartaa ama ma yeeli kartaa. Ma ay noqonaysaa uliweza waa mar hore, utaweza waa hadda kadib wey. Diidmadeedana bay noqonaysaa, waxay leedahay huwezi, adiga ma awoodid. Meeshan mar walba waxay isu bedelaysaa markii waqtiga hadda la joogo wey. Kuwan kale sharcigaas ma qaadanayaan. Mar hore waxay noqonaysaa haku, huku. Halkan li'dan ku bay isku bedelaysaa. Hukuweza bay noqonaysaa, hutaweza bay noqonaysaa. Okay, markay jamcan tahayna waxay noqonaysaa munaweza, waad adinka waay. Meeshan waa adiga, intana waa adinka oo adinka hor joogta hadda fiirsanaysiin waay. Munaweza waad awoodin, muliweza waad awoodeen, mutaweza waa awoodi doontaan. Diidmadina waxay noqonaysaa hamwezi. Intaasay noqonayna adaan way ka baxay meeshan bay isku bedelay. Ku meeshan waxay isku bedelaysaa ku markay diidmo waqti tahay waqti hore. Hamkuweza maydan awoodin adinka, hamtaweza adinka ma awoodi doontaan, ma kari doontaan waay. Sidoo kale qofka saddexaad oo ficil sameeyaha waa yeye, waxaa kuwan jamci ayada ama asaga, ayaga. Okay, anaweza way awoodaa ama wuu awoodaa. Aliweza isaga wuu awooday ama iyada way kartay ama way awooday. Ataweza iyada way kari doontaa ama way awoodi doontaa. Halkaana sidoo kale wanaweza way awoodeen ama way kareen. Waliweza way awoodeen. Halkan hadda waa karaan, hadda way samayn karaan. Tan waxaa waaye way kareen ama way awoodeen. Wataweza way awoodi doonaan, way samayn karaan. Jamceeda diidmadii tan bay qaadanaya hawezi, ma karo. Iyada ma karto ama asaga ma karo. Hawezi ongea ama hawezi kuongea Kiswahili adii kartaa. Hakuweza ongea vizuri, si fiican ma awoodin inay u hadasho. Intana hataweza kuja kesho adii kartaa. Intana sidoo kale la qaadanaya diidmadii. Dhammaan haddaa la socotay jamca diidmadooda waa tan way qaadanaysaa, way qaadanaysaa tan waa. Dhammaan jamca diidmadooda bay ka hormarayso oo KMBishi ah. Marka tan waxay noqonaysaa hawawezi, ma awoodi, ma awoodaan, ma karaan. Hawakuweza mayna awoodin, hawataweza mana awoodi doonaan. Iyagoo jumlada dhammaystiranna insha Allah waa sheegi doonaa. KMBishiyaashan iyo sida loo isticmaalo diidmadoodii casharadeedii hore ku jiraan. Please soo daawo haddaa ku wareertay. Haddii kalena waxaan baranaynaa maanta weza ahayd oo karid ah. Taas ayaana loo isticmaalaa. Haddaa fahamtay
good